السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بالضوضية شذا قيمها يقدرين تمضن ميل والبود دافها عالم كتشوكتان ضوضيالو حل سوى قار وقت كنظان وكلا ودين سومرين جني وروحي ديغان كهي الدل كنغسو قاري او ستو سيدين كيمانيا إجانا حرونت الديغان كسومالي دي مقالة الجيجيغا وركي جنو واحد لسو عسين دراني وافار عبد الدباد قدبادان ذيكاها يلو ورالك الديغان كي الدل كوغود دور كورونا وحا كاملا shacabweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa guud ahaanba deegaanka ka sameeyay banaanbaxyo aan loo kala harin oo ay ku taageerayaan howlaha horumarka nabadgelyada nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda deegaankuba gaarsiiyeen shacabka deegaanka warkan idinka hayno dalka وعارونتا dalka ee magaalada Addis Ababa ka furmay kulan ku saabsan mashruuca dib u curashada dalkeena Itoobiya wabiga Bay oo ay yeelanayaan guddi ka kooban 3 wadan ee kala ah ee dalkeena Itoobiya wadanka Suudaan iyo wadanka Masar wadabadan iyo qodobo kale ay idinku daawan doontaan xilli tabinteena wareed markale dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba aad ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo faahfaahsan shacabweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa guud ahaanba deegaanka ka sameeyay banaanbaxyo aan loo kala hadhin oo ay ku taageerayaan howlaha horumarka nabadgelyada nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee xukuumadda deegaanka gaarsiiyeen guud ahaanba shacabweynaha deegaanka waynta warkaasi haynu eegno deegaanka Soomaalida Itoobiya muddo 7 sano ka hor ah waxa uu ahaa mid aan jirin tan iyo nabi aadan isla mar ahaantaana ah meel halaqya galeena nabadgelyo darrada iyo horumar la'aantii ka jirtay awgeed oo aysan degma u gudbi jirin gobol u gudbi jirin kala qoqobnaanta jirta awgeedna loogu dhiman jiray oon iyo haraad biyo la'aan daraadeed mar ahaantaana ay magaalooyinka waaweyn ee deegaanku ay ka muuqatay dib u dhac ballaaran oo la xaadle oo muuqaalkoodu waxa mid tuulo ayaa waxa dhalinyaro u dhalatay deegaanku ay ka dhiidhiyeen nabadgelyo darradii iyo horumar la'aantii baasanayd ee ka jirtay guud ahaanba deegaanka waxayna dhaxdo u xidhan isla mar ahaantaana wacad ku mareen sidii deegaanka ay u gaarsiin lahaayeen nabadgelyo buuxda iyo horumar taabagala sida deegaanadii kale ee dalku xilligaasi ku sugnaayeen iyagoona dhigtay yoolal iyo himilooyin leh hiigsi fog oo shacabka lagaga saarayo cadowgooda koobaad oo ahaa saboolnimada haddaba waxaa hubaala in dhalinyaradii dhiiranayd ee dhaxda u xidhatay in shacabka deegaanka ay ka saaraan mugdigii ay ku jireen ee ahaa nabadgelyo darradii iyo horumar la'aantii ay muddo yaroo kooban ku gaadheen kagana midho dhaliyeen himilooyinkii iyo yoolashii ay dhigteen iyagoo ilaahay tala saaranaya waxaanay deegaanka Soomaalida Itoobiya gaarsiiyeen nabadgelyo la isku halayn karo 100% horumar laxaad leh iyo nidaamka maamulka suuban oo uu dubdhaxaad u yahay dib u curashadu hadaba shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku faraxsan guud ahaanba waxqabadka xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ay ka qabteen guud ahaanba meel kasta oo deegaanka kamida oo ay ugu horeeyeen dhanka horumarka sida wax ka qabashada biyaha jidadka iyo buundooyinka waxbarashada caafimaadka beeraha shaqo abuurka ka qaybgelinta haweenka dhanka siyaasadda aasaasidda microfinance-ga iyo kor u qaadidda kabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale wax ka qabashadii xaaladihii abaaraha oo ay xukuumaddu gurmad ballaaran ka samaysay samanata bixisay shacabka deegaanka dad iyo duunyaba iyo waliba nabadgelyada macaan ee geedka harka weyn ah ee shacabka deegaanku geeska gees ay ku raaxaysanayaan oo ay gundhigu tahay nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashadu ayaa waxa ay taageerada ay u hayaan isbeddelka horumarineed ee waxqabadka xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya uu gaarsiiyay iyo nolosha macaan ee ay hantiyeen shacabka deegaanku ay ku muujiyeen banaanbaxyo ballaaran oo aan loo kala hadhin waxaana ugu horeeyay shacabka gobolka City waxaa sid mudan hadalkii marayaha guud ee mashruuca horumarinta reer guraaga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna xubin golo dhaxa mudan Cabdixakiin Cigaal Cumar uu ku booriyay guud ahaanba shacabweynaha deegaanka in ay ku daydaan taageerada shacabka gobolka City ay u hayaan xukuumadooda iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya
lama yaabo meelan joogana inaga soo baxay anagana inaga soo baxay cid ay ka soo galaysan Allah oo ay ama yaabo cid walba badalana wadana nina Soomaaliyeed iyo Soomaalinimo iyo dadnimada wax loo dhigayaa badalka sida Soomaaliyeed ka loo baahan in la wada taageero loo baahan si soo gobolka siyaasadda oo Soomaaliya oo dhaqaale oo ku tayada oo jiraado wax halka ka dhacay beeshiiyay waa looga fadhiyaa Soomaaliya haddaba shacabweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya guud ahaanba 11kiisa gobol 6 maamul magaalo iyo 93 degmo ee uu ka kooban yahay deegaanku ayaa waxa banaanbaxyo ballaaran oo aan loo kala harin ciroolo iyo caruurba ay dhankooda iyaguna ku muujiyeen taageerada ay u hayaan horumarka nabadgelyada nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada ee muddada yar ee kooban gudaheed ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ay ku gaarsiiyeen horumarka laxaad kale bulshada deegaanka iyagoo ay ugu horeeyeen shacabka ku dhaqan gobolka Doolo galada Wardheer madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo kheyraadka dabiiciga Marwo Sucaad Axmed Faarax ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo kula hadashay magaalada Wardheer ee banaanbaxa ballaaran ee ay ku taageerayaan isbeddelka horumarineed ee haystaan nabadgelyada nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada kula hadashay shacabka ku dhaqan magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo bulshaweynta gobolka Doolo gaar ahaan degmada Wardheer waxaan maanta muujisay dawladdu waxay idin qabatay ee horumar ah ee nooc kastaba leh ee dhaqaalaha ah marka aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa waadna mahadsantihiin bulshada gobolka Doolo waxaa lagu yaqaanaa dad sharaf leh muxuu ahaay toole ciisi iyo muxuu ahaay maamuus leh sidoo kale dad midnimada mar walbana u taagan hormuudna u ah ayaa la idinku yaqaanaa saad ogsoontihiinba xukuumadeenu waxay xooga saaraysaa siday u horumarin lahayd bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhalinyarada iyo dumarka marka maantana halkan waxaan ka muuqda oo aad iyo aad aan uga mahad celinayaa dhammaan dhalinyarada qaybaheeda kala duwan ee rag iyo dumarba leh waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay dhalinyarada la magac baxday heego oo ah mawjado iyo hirar dad ah oo wacad ku maray inay ilaashanayaan derbi dhagaxana u yihiin xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiyaba isla markaana gaashaan birah u yihiin horumarka nabadgelyada nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada iyagoona dareenkooda cabiraya waxa ay yiraahdeen dhalinyarada heego sida tan annagoo ah ururka dhalinyarada ee heego ee dowladda deegaanka Soomaalida oo iskood soo abaabulay ayaa waxaan taageeraynaa horumarka dimuqraadiyadda iyo maamulka suuban waxaan ka soo horjeednaa fikirrada dadka xunxun ee horumar diidka ee nolol diidka mana taageerino waan ka soo horjeednaa fikirkoodana waxba kama jiraan waan jabinay intaas oo kumaan kun oo qof baan isugu timi rabitaanka shacabka dowladda deegaanka Soomaaliya isaga ku soo baxay horumarka iyo dimuqraadiyadda ay arkeen way ku soo baxeen sidoo kale shacabka ku dhaqan gobolka Qoraxay xaruntiisa magaalada Qabridahar ay iyaguna sameeyay banaanbax weyn oo ay ku muujinayaan taageerada weyn ee ay u hayaan horumarka dhinacyo badanaha nabadgelyada nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada ka hana qaaday guud ahaan deegaanka gaar ahaan gobolka Qoraxay ay majraawayeen xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda deegaanku banaanbaxan weyn ee bulshada ku dhaqan xarunta gobolka Qoraxay ee magaalada Qabridahar ay ku taageerayeen horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo dib u curashada ayaa waxa shacabka la hadlay oo magaalada Qabridahar kula hadlay mas'uuliyiin heer deegaan ah oo ay ugu horeeyaan wasiirka xafiiska cadaaladda iyo xirlaalinta guud ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdijamaal Axmed Qolambi iyo wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwo Raxma Suldaan Maxamuud Haybe runtii deegaankeena waxaa ka saldhigtay nabadgelyo horumartay waxaad maqraati ka tihiin
deegaankan aad ku neeshiin ee magaaladan qabri dahar dhibaatooyinkii dhinaca nabadgelyada la soo maray waana waxyaabaha uu ku faani karo xisbigeenna iyo xukuumaddeennuba inay salka u dhigtay nabadgelyadii shacabkeenna ragaadisay muddooyinka badan taasna waxaan dhihi karnaa waa guulaha aan maanta ku faanayno ka xukuumad ahaan iyo ka xisbi ahaanba haddaan eegno dhinaca horumarka qabri dahar maanta indheeda macallin waa magaalo qofkii muddo badan ka maqnaa uuna garan karin waa magaalo horumarkeeda dhammaan dhinaca waxbarashada caafimaadka waddooyinka isgaadhsiinta dhammaan laga hirgeliyay weeyaan taasna waxaa runtii horseed u ah xisbigeenna iyo xukuumaddeennaba in maanta qabri dahar ay noqoto caasimad ay ka muuqdaan dhammaan ilaha horumarineed ee dawladdu mataqaanaa ka fulin lahayd hadday noqoto garoonka qabri dahar hadday noqoto jaamacadda oo runtii jaamacadda labaad ee deegaankeenna ka jirta hadday noqoto kulliyadaha kala duwan ee waxbarashada tveydka nersi schoolka dugsiyada model schoolka oo laga dhisay iyo dhammaan maxaan ku rahdaa waddooyinka magaalada oo runtii la dhihi karo waxaa laga qabtay waxyaabo ku dayasho mudan taasna oon dhihi karo waxaa qabtay xukuumaddeenna iyo xisbigeenna qabtay sidaas darteed taageerada aad maanta u muujinaysaan xisbigiinna iyo xukuumaddiinna waa tuu runtii aan dhihi karo waxaad dhadhamiseen midhihii horumarka waxaad dhadhamiseen midhihii nabadgelyada xisbigeennu keenay dhalinyarada iyo haweenkaas in maaragtay shaqo abuur badan loo sameeyey oo maaragtay amaaha badan oo maaragtay shirkado badan iskaashatooyin badan iyagii oo markaa haddana maaragtay tiifeedyada intii la geliyo waxay ka shaqaysanayeen la tababaro iyagoo tababaran inay markaasba iyagoo tababaran maaragtay shaqadii lacagta la amaahinayo shaqadii iyadoo u caddahay oo ay garanayaan ay ka shaqaynayeen waxaynu ognahay shalayto inaynan deegaankeennu ama aynaan lahayn jidad layskaga kala gudbo oo jidadka maaragtay laga shaqeeyey oo la sameeyey markaa sidaa leeyahay gobolka qoraxay waa meelaha mashaaricaha ugu waaweyn ama ceel ha noqoto biyo ama ha noqoto beero ama wax walba ha noqoto meelaha laga sameeyey weeyaan odayaasha ku dhaqan xarunta gobolka qoraxay ee magaalada qabri dahar ayaa iyaguna banaanbaxani ka hadlay iyagoo ku nuuxnuuxsaday sida ay u taageersan yihiin howlaha horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo dib curashada iyadoo sidoo kalena dhalinyarada heego ee gobolka qoraxay ay iyaguna wacad ku mareen inay ilaashanayaan horumarkooga iyagoona halkaasi ka hadlay inaan muujino inaan garab taagannahay xukuumadda iyo xisbigeenna inoo qabtay waxyaabaha carabka lagu dhiftay faraha badan ee jaamacaadka iyo macadiyada iyo iskuulka iyo waddooyinka iyo maanta waxaa la haysto ilaahay baa mahadda iska leh iyo fadligaas laakiin cidda qabatay ee xukuumadda ah iyo shacabku inay mid isku yihiin oo isku xidhan yihiin oo dadaan la kala furfuri karin ay yihiin oo dhallinyaro iyo haween iyo odayaal iyo dhammaan dadweynaha gaar ahaan magaalada qabri dahar iyo maamulkeeda inay xukuumadda iyo xisbiga iyo qaabkay wax u socdaan iyo shaqooyinka ay taageersan tahay ayaa odayaasha dhallinyarada haweenka iyo dhammaan dadweynuhu ay u soo munaasabadda lagu soo baxeen waannu garab taagannahay wakhtigii hore ee nabadgelyada iyo horumarka iyo maamulka laga qabtay iyo maanta wakhtigan aan taagannahay halka aan taagannahay in hore looga sii socdo horumarka iyo nabadgelyada iyo maamulkuba ay hore u sii socdaan sidaa aan ku garab taagannahay dhammaan waxaan ku muujinaynaa dadka dadweynaha magaalada qabri dahar xisbi ahaan iyo tala ahaanba inaannu saa u garab taagannahay waad mahadsantihi dhibkii aynu soo marray ilaahay iyo hoggaamin wanaagsan oo inoo soo baxday baa inaga bixiyey hoggaamintaa wanaagsan ee ilaahay uu solonsiiyey inay inoo shaqayso innana waynu u shaqaynaynaa waa ka sidanaynu ugu shaqaynaynaa waa taageerada hoggaaminta xisbiga iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaankiisa iyo siyaasaddiisa oo dhan iyo midda haddii alla ka dhigay kaalmayso oo dhan waynu taageeray halka waxaan u soo istaagay urur la magac baxay kacaanka dhalinta heego urur la magac baxay kacaanka dhalinta heego la magac baxay ururkani heegaa la dhahaa waa urur dhalinyaro oo iskiisu aasaasay waa urur u aasaasmay adkaynta difaaca nidaamka dawladnimo ee aan ku gaadhnay
horumarka nabadgelyada iyo jiritaanka faa'iidada nidaamyada Soomaaliyeed hadaan nahay ururka heegan waxaan hariya habeen nabadgelyada horumarka waan soo dhaweynaynaa waan difaacaynaa hadaan nahay dhalinta kacaanka heego cid kasta oo cadow ku ah nidaamkan maanta aan haysano waan hor taaganahay waan la dagaalamaynaa hariya habeen dhalinyarta waxaan leenahay waa inaad muujisaan karti iyo muwaafaqo inaad muujisaan xisbigu waa xisbi horumarineed waa xisbi mar kasta fursado shaqo abuur u sameynaya dhalinyarta hagaag sidoo kale shacabka ku dhaqan xarunta gobolka Shabeelle ee magaalada Goday ayaa kumanaan kun oo shacabka magaalada Goday waxa ay isugu soo baxeen banaanbax weyn oo ay ku taageerayeen kuna muujinayaan sida ay u taageersan yihiin hawlaha horumarka nabadgelyada iyo xasiloonida ka hanaqaday guud ahaanba deegaanka nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada ka hanaqaday guud ahaanba deegaanka kumanaanka kun ee shacabka ku dhaqan magaalada Goday ayaa waxa kula hadlay magaaladaasi wasiirka xafiiska horumarinta dooxooyinka iyo waraabka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Suldaan Maxamed inaynu dhamaanteen goobjoog u ahayn in mataqaanaa deegaankeena horumarka ballaaran uu gaaray dhinaca biyaha dhinaca waxbarashada dhinaca mataqaanaa wadooyinka dhinaca caafimaadka iyo dhinaca xiriirka dadweynaha dhinaca beeraha iyo guud ahaan shaqooyinka horumarka ee deegaankeena ka socda waan soo dhaweynaynaa Soomaalidu ha waarto jiritaanka dowladda deegaankeena ha waarto xukuumaddeena iyo dadaalka ay wado ha guulayso dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ha guulayso dowladdiidku ha dhaco waa tahay dhankoogana dhalinyarada ku dhaqan xarunta gobolka Shabeelle ee magaalada Goday ee Heego ayaa ka hadlay banaanbaxan weyn ee ay ku taageerayaan hawlaha horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo nidaamka dib u curashada ee deegaanka ka hanaqaday banaanbax weyn oo ku taageerayno horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka hanaqaday guud ahaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya saaka waxa guud ahaan deegaankeena lagu dhawaaqayaa ama la furayaa urur cusub oo ay aasaasteen dhalinyaro iskeed isku taagtay oo u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya nidaamka dawladnimo ee aan ku gaarnay horumarka iyo nabadgelyada waanu taagannahay waana taageersannahay cid kasta oo cadawgiisa ha jabo cid kasta oo horumarkii nabadgelyada iyo maamulka suuban cadow ku ha jabo maamulka suuban ha waaro dib u curashadu ha waarto xisbiga iyo xukuumaddu ha waaraan waa tahay sidoo kale shacabka ku dhaqan xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur ayaa kumanaan kun oo ku dhaqan shacabka magaaladaasi Dhagaxbuur waxa ay isugu soo baxeen banaanbax weyn oo ay ku muujinayeen kuna taageerayaan sida ay horumarka nabadgelyada nidaamka maamulka suuban iyo dib u curashada deegaanka ka hanaqaday ay ugu naaloonayaan isla mar ahaantaana ay u tahay wada dhaxaadka noloshooda banaanbaxa weyn ee bulshada ku dhaqan xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur ay ku taageerayeen hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo dib u curashada ayaa waxa shacabka magaaladaasi Dhagaxbuur kula hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Jamaal Faarax Warmooge iyo wasiir ku-xigeenka xafiiska sayniska iyo tiknoolajiyada mudane Baashi Cabdi Ismaaciil
اسمي ما كونستو وربطوا الهوارو ورا الله صالحا halkan waxaan salaam ugu soo jeedinaynaa dadweynaha reer Dhagaxbuur sida aad u ballaaran ugu soo qaybgalay maanta waad aragtaa in halkan la sameeyo dadkaas horumarkay taageersan yihiin waad garanaysaa shalay waxaad soo barisay maaha maanta waxaad difaacanaysaa waa maxay dowladda maxaa lagu taageersan yahay horumarkaa lagu taageersan yahay isbeddelkaa lagu taageersan yahay xisbigeeda waa taageeraynaa horumarkaa taageeraynaa waxaan ogsoonahay Dhagaxbuur shalay iyo maanta sida ay tahay taageeradeena waxay ku sar go'an tahay ama salka ku haysaa isbeddelka horumarka iyo nolosha aynu helnay inagoo ka jawaabayna waxa maanta jawaabteeda laga dheehan karayay wajiyadiina iyo sida aad shucuurtiinu ay u kacday horumarku ha waaro dibcurashada ha waarto dibcurashada ha waarto nolodiidku ha dhaco nolodiidku ha dhaco horumardiidku ha dhaco horumardiidku ha dhaco Soomaalida Itoobiya waa mid cid kale ka qaybin kartaa ma jirto cid kale ka qaybin kartaa ma jirto Soomaalida Itoobiya ha noolaato ha israacdo dhankoodana odayaasha ku dhaqan xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur iyo dhalinyarada ku dhaqan xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur ee Heego ayaa iyaguna ka hadlay banaanbaxan weyn ee ay ku taageerayaan howlaha horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo dib u curashada ka hana qaaday guud ahaanba deegaanka gaar ahaan gobolkaasi Jarar waxaan taageeraynaa xisbigayaga xukuumaddanada marka annaga maanta waxay noo tahay ciid weligay ma arag in badan baan ku noolaa waan ku dhashay magaalada Dhagaxbuur dad intaa la eg oo isku soo baxa waa tiro ka weynaatay maskaxdayda shucuurtayduna aad bay u kacsan tahay waxaan idhaahdo ma garanayo aad iyo aad arrin u wanaagsan ayaanu haddaanu odayaasha iyo salaadiinta ugaasyada iyo garaadada haddaanu nahay ayaanu aad u taageernay aadna waanu taageeraynaa waxaanu taageersanahay xukuumaddannadaanu taageersanahay waxaanu taageersanahay xisbiganaanu taageersanahay kacaanka dhalinta Heego waa urur u aas-aasmay difaaca xukuumaddeena iyo midnimadeenna waa urur u aas-aasmay adkaynta iyo difaaca midnimada dawladnimo ee aan ku gaarnay horumarka jiritaanka kufaanidda Soomaaliyeed ee abidka aas-aasantay deegaanka Soomaalida Itoobiya kacaanka Heego ha guulaysto kacaanka Heego ha guulaysto kacaanka Heego ha guulaysto haddaan nahay kacaanka Heego nabadgelyada horumarka ay xukuumaddeena waan ku faanaynaa haddaan nahay dhalinta kacaanka Heego cid kastoo cadow ku ah waan fashilinaynaa waan burburinaynaa waanan la halgamaynaa waan burburinaynaa nahay kacaanka Heego nabadgelyadeenna horumarkeenna iyo xukuumaddeena waan difaacanaynaa ururka dhalinyarta Heego ha waaro ururka dhalinyarta Heego ha waaro ururka dhalinyarta Heego ha waaro ururka kacaanka dhalinta Heego ha waaro ururka dhalinta kacaanka Heego ha waaro እናሸንፋለን ነገም እናሸንፋለን
weli daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ah ee STV xiltabinteeni wareedda waynu ku guda jirnaa wararkan idinka hayno dalka waa xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa